u taagan yihiin afalaasa dagaal u taagan yihiin deegaanka ilmada deegaanka oo yana aad halkan wax looga hawlgala aad u muhiimsan oo lambarkood noo ah deegaanka la yiraahdo halkan baa looga hawlgala oo ciidamada kala duwan la hawlgala aad ay u mahadsan yihiin ciidankaasna wasiir halkan waxa taala 30 iyo 2 gaari oo technical halkan taala hadii la yiraahdo waxa saakay xardheer la qabto wasiir diyaar u yihiin meel ka soo joogay laga hawlgalo wasiir diyaar u yihiin dawladda Ameerika meesha ku joogan ayay isugu hayaan ciidana waxa loo yimid wasiirda intaana kamid ahaa maanta loo soo wacay maanta nin Yurub iyo Ameerika yimid nalama keenin inta saaxiib loo cid kasta waa taqaana ninkan gobol yaa taqaan Soomaaliya ciidanow dadka dagaalka soo galay oo dad kala oo qabiilada kala anagu waa ku faraxsanaa ka naximano hadalena yiraahdana ka naxayn markay kaliya dagaal ku jirnay hadii marka abgal soo galay waxa wala soo galay oo marso soo galay dub la soo galay oo intaas galmudug ay yihiin oo Hirshabelle ay yihiin maanta anagu waxa loo dhibsamayno waxaan ku dhibsanayn anagu kaligana meesha taagnin oo hadalka wax loo ku hadleen hadal gudoomiyaha ku hadleen hadal talaash ku hadleen canaantana anagu waa ku faraxsanaa markay ay joogin baa ku jirnay haddana dagaalkiisa meesha ugu jirnaa ma moogin oo inta dagaalka galna meel shay ahayd ayagana ka naxmayna maanta ma lihin maxaan noola hadasheen markay intaas waxaan u taagnay oo u sameeynay hadii cadawgan u helnay saakay raggan raga u helnay haddana diyaar baan inaan galno difaacay sharafta u soo hooyay ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu karaameeyay ayaga oo ay rabaan cadawgu inay duleeyaan oo ay rabaan gabdhaha iyaga iyo dadka iyaga iyo culimada iyada inay ahaaneystaan raggan waa ragga ilaahay yadooda uu karaameeyay subxaanahu wa ta'ala waxaan ognahay inay duruufo kala duwan ay ku soo shaqeeyeen waqti adag oo shabaab aan la diidi karin inay diideen waqti aad iyo aad u adag oo shabaab qof ka hor imaan kara uu jirin ayay ka hor yimaadeen aniga waxaan rabaa inaan kula dardaarmo taqwada ilaahay ayaan ku guuleysan karnaa salaada inaan tukanaa ku guuleysan karnaa halka 2 sano adoo fadhiyay jihaad aaday shabaab madaxa isku diirteen tii ilaahay ee timaado hadii xujo ku qabsato lagu yiraahdo shaqo fiican baa qabatay laakiin shaqadii qayb kamid ah ka maqan soo qasaar maahan xaaje walbo timaada iyo adayg walbo yimaada iyo culaab walbo timaada dul qaado hadii aan dul qaadan lahayn meeshan aan samri lahayn meeshan maanta waxa weey gabdhaha iyaga waxa isku 2 u isku wadan lahaa nimanka khawaarijta shabaabka ah halka waxaan ku soo gaarnay waa samar iyo inaan dul qaadano alxamdulillah maanta ilaahay baa mahad iskale madaxweynaha qarankuna haduu cilaamiyay dagaalkii si wada jir loo qayb qaato maamulkii galmudugna sidoo kale safka hore uu ku jiro ummadii Soomaaliyeedna wixii anagu aan fahnay dhowr iyo 10 sano ka hor inay maanta ummadii Soomaaliyeed kulli ay fahansantahay alxamdulillah waay maanta in la bicigeenay qoorihii shabaab maanta in la bicigeenayo waa alxamdulillah inaan hal mara alxamdulillah ugu dambeyntii wasiirka amniga gudaha galmudug maxamed cabdi aadan gaboobe ayaa u mahad celiyay ciidamada daraawiishta iyo kuwa deegaanka ee muddada difaaca uga jiray degmada Wasil iyo deegaanada hoos yimaada wuxuuna sheegay in dhawaan la qaadi doono hawlgallo ka dhana kooxaha nabadiidka al-shabaab dhanka kale wuxuu sheegay in dawladda federaalka iyo dawlad goboleedka galmudug ay u midaysan yihiin sidii loo soo afjari lahaa dhibaatooyinka kooxda al-shabaab waxaan aad iyo aad maaragtiin kaga mahad celinayaa inaad naftiina iyo maalkiina iyo waqtigiina aad u hurteen inaad iska celisaan khawaarijta markasta isku dayda inay ku soo xadgudubto ummadda Soomaaliyeed muddo ku dhow 2 sano inaad maaragtay ku jilib xirnaataan halkan deegaanadaas iyo muxuu ah dhammaan yaani jiidaas aad ka u faraha badan haddaad leedihiin culimo iyo haddaad leedihiin ciidan iyo haddaad caamal leedihiin inaad intaas ku sabirtaan ayaa ilaahay sababa marka maantay waa jabeen khawaarijti maanta waa jabeen meesha Hiiraan iyo Shabeellada dhexe aad ogtihiin sida loogu jijiidayay muddadaas aad ku kaliyeysayteen markii hore
oo aad ku dhibtooteen kaligiin oo aad ugu didaasheen inaad muxuu ahaa aad bartaan dadka inaad yani la iska celin karo maanta waa ka tabaryar yihiin dagaalka waa si toos ah loo wada gelayaa oo loo dhaqaaqayo haddii alla idmo ciidamadii kala duwanaa waa imaanayaan adinkana waxaa la idinka rabaa inaad muxuu ahaa si diyaar garowdaan oo si dhaqaaqdaan oo difaacii inaysan ku sii jirinin oo haddaba sahankii aad sii badisaan